بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين walaalahayga qiimaha iyo qaayaha badan caalamka meel kastoo ka joogtiin waxaan idin leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa maalin kale oo qiimo badan iyo ciid wanaagsan ciidukum mubaarak taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal su-aasha isweydiinla waxa weeyaan maraykan markuu kuwaa ka waayey muxuu sameeyey trump twitterka ama x waa taqaaniin ayuu isagu kusoo canaantamaa oo kusoo qayliyaa halkaasuu soo qayliyay ugu dambeyntii xalay wuxuu soo qoray coward baa tihiin fulay baa tihiin waad baqaysiin iyada oo ay dhici karto in dagaalkani wax weyn ma aha mana cusla laakiin haddaan iskaashanno waxbaan samayn lahayn meeshan waan furi lahayn laakiin waad ka cararteen buuli marka taariikhdu way idin xusi doontaa annaguna waan idin xasuusan doonaa halkaasuu maaragtay trump uu ka baxay waxa u yimi ninkii fudfududaaye maaragtay wasiirka xoogga iyo dagaalka askarta wuxuuna ka soo codsaday in la siiyo fan 200 oo bilyan oo dollar marka trump oo naftu ka baxsan tahay xanaaqsan oo raba dagaalkanba inuu soo afjaro ayuu ninkaana wuxuu ula yimid 200 oo bilyan oo kale waa inaan helno si iiraan aan uga badino ilaa haddii kale ma ka badin karno lamana sii wadi karo dagaalkan oo dagaalkani wuxuu u baahan yahay funding in la fangareeyo u baahan yahay sidaas awgeed trump wuxuu rabaa in uu 200 oo bilyan uu ka helo congaresska laakiin lawmakersku su-aalo badan ayay weydiinayaan maalin dhaweyta waa idinkii shalay ayay ahayd markuu wareysanayey tucker carlson ninkaas journalistiga ee amerikaanka ah uu wareysanayey ninkii hay-adda sare ee sirdoonka hay-adda sirdoonka ee maraykanka madaxda ka ahaan jiro u dhowaa markaa maxaanku idhahda trump inuu iscasilay kabacdina uu ka warramay dagaalkan sida lagu galay in ay si qalada tahay in uu sheegay iiraan in aynan haysanin wax maaragtay nuclear la yidhaahdo in waxa uu netanyahu sheegayay ee ah in ay usbuucyo uga dhiman tahay inay samaysan karaan inayna waxba ka jirin laakiin talooyinkii iyo maaragtay fariimihii ay soo gudbiyeen inaanan la qaadanin meeshaas waxaa ka soo baxday in trump iyo dowladda maraykanku ama maaragtay sirdoonka maraykanku aynan isla soconin waa sababaha ay u qaylinayaan maanta maraykanku dadkooda sarsare ama senad ha noqdaan ama aqoon-yahan ha noqdaan ay u leeyihiin dagaalkani dagaal maraykan leeyahay maahine waa dagaal israa'iil ay leedahay oo israa'iil dayqada lugaha inoo gelisay marka waa la isweydiinayaa 200 bilyan sidee loogu ogolaan doonaa ugu dambeyntii haddaanu imaado qodobka afraad oo ahaa inkastoo qodob kale aan rabay in aan idinka dabageeyo waxaa waaye maxaa dhici kara dagaalkani wejiguu qaatay dhinacuu u socdaa dagaalkani horta waa 2 weji dagaalkani waa weji diimeed oo uu leeyahay oo ay maaragtay dabcan iyaga oo isla socda judeo christian bay dhahaan yacni yahuud iyo christian oo heshiiye camal oo markaa caalamul islaami dagaal ku qaadaya ayadana si gaaraan hadduu ala yidhaahdo aan si faahfaahsan baan uga hadli doonaa xalaqooyinkeena soo socda haddii eeba idmo qeybta labaad ama qismiga labaad waxa weeyaan waa dagaal dhaqaale kaabayaasha dhaqaalaha la iskala dagaalamaya meeshaas marinka waxaa soo mara 20% oilka ama maaragtay gaaska caalamka aada reer galbeedku ku nool yihiin maraykan iyo yurub ay ku nool yihiin ashiyadu ay ku nooshahay halkaasay soo maraan dowladahan muslimiinta ilaahay halkaa dhigayna waa macdan ilaahay siiyey oo caalamka loo faafinayo awoodda maanta cidda kale ay haysato waxay ahayd inay iyagu haystaan laakiin nasiib darro ma garanayaan marka wuxuu rabaa in si xooga meeshaas lagu furo iiraanna meesha wayba qabsatayba way isweydiinayaan dabcan yaa iiraan daba jooga waxaa daba joogay leeyihiin maaragtay russia iyo maxaan ku dhahday china dabcan waa garan kartiin oo maalmihii lasoo dhaafay iiraan waxa ay burburisay maxaan ku dhahday raadaaradii yaalay imaaraadka yaalay kuwait yaalay ciraaq yaalay baxrayn
waxay aad ula dagaalantay maaragtay aad u weerartay dhaawac ay kasoo kamayni ay gaarsiisay geedihii la isaga qabanayay maaragtay gantaalada soo dhacay ha waxay arkayaan dad waaweyn oo waxaa jira oo dorosa ama analysis ku sameeya iyagu ahaan jiray maxaan ku dhahday colonello ahaan jiray ciidan sare madax sare ahaan jiray oo arkaya dagaalkani sida uu u socdo in uuna maraykan iyo israa'iil oo isla socota ayna ku guuleysanaynin iiraanna tactic ay isticmaalayso in ay qaawiso marka laga hadlayo voterska marka laga hadlayo taxpayerska in ay tusto trump in uu keligii cararayo ha marka senaariohaadyada ama senaarioska muxtamalaadka waxyaabaha optionada dhici kara maxaa la leeyahay kow optionka u horeeya waxaa laga yaabaa maadaama ay demand soo dhigtay miiska iiraan ay tiri saddexdan shuruudood ee aan kusoo sheegnay maxaan ku dhahday kelbiyadeennii hore haddaydanan ka soo bixin macnaheedu jiritaanka iyo xuquuqda maxaan ku dhahday iiraan in faraha laga qaado in maxaan ku idhaahdaa xaq ay u leedahay in ay samaysato nuclear la xidhiidha wax soo saarka iyo maxaan ku dhahday dabka iyo korontada iyo wax aynkaasa in la bixiyo magdhow min kasoo bilow 40 sano oo lasoo dhaafay ilaa maanta cunaqabantayntii iiraan lagu hayay dagaalkan maanta la galay dhaawac iyo maaragtay dhibka uu keensaday inaad intaasoo dhan aad bixisaan gebi ahaanba in aad ka baxdaan khaliijka oo aad faraha aad kala baxdaan ood ka qaadaan hadday arrintaasi dhacdo maxaa la leeyahay maraykan iyo israa'iil haddii ay ku guuleysan waayaan arrintaas oo ay baxaan maxaa dhacaya waxaa dhacaya iyada oo faahfaahsan ayaan ku sheegi doonaa cajaladaha clipka soo socda maxaa dhacaya haddii uu ka tanaasulo trump oo dib uu uga noqdo arrintaas waxaa dhacaya waxaa la yidhaahdo petro dollar diilkii ahaa heshiiskaas ee uu la galay dowladaha khaliijkii carabta ee uu yidhi waxaan idinku bedelayaa maxaan ku dhahday protection iyo inaan idin siiyo wixii la idinku ilaalin lahaa ee cadow kasta la idinka ilaalin lahaya inaan hub idin siiyo ammaankiina inaan sugo intelligencekiina inaan toosiyo horumar inaan idin sameeyo infrastructure markay noqoto in aan maxaan ku dhadayay idinka ilaaliyo cadowga ha oilkana idinka qaatade oo marka aan idinkaga gato dollarka arrintaas hadduu ka tanaasulo diilkaana waayaya dollarkaasi uu dhacayaa carabtana cid dambe oo wax ka iibsanaysa oo kaga iibsanaysa dollar ma jiro marka arrintaasi waa arrin la xidhiidha economigii dhannaa uu ku tiirsanaa maraykanku hadday sidaas noqoto waxaa dhici karta maraykanku inuu maaragtay isagu uu gacmaha iskula tago iscuno marka ixtimaalku probabilitygu inuu trump sidaas sameeyo intay la eg tahay bay leeyihiin waxay tilmaamayaan in ay mustaxiil tahay in uu sidaas yeelo maxaa yeelay petrodollar waa waxa economigiisuba ku dhisan yahay wa ilaa istoogyada dhulka gali wuu dumi hegemonigii haymanadii maraykanku iyo westigu way dumayaan maanta calanka westiga waxaa sida maraykan ha sidaas awgeed waxay leeyihiin ixtimaalkaasi ama possibilitygaasi aad bay u yartahay okay possibilityga labaad waa maxay possibilityga labaad waxa waaye israa'iil iyo maaragtay trump netanyahu iyo trump oo isla socda in ay 200 bilyan ay soo qaataan isla markaana ay ku tashadaan in ay iiraan dhulka dhigaan si kale waxaa la leeyahay kuma dhigi karaan iiraan waayo ruush iyo china dhabarkooda jooga oo iyagana maaragtay cabsida weyn ay qabaan waxaa dhici kartay leeyihin already in ay iiraan haddaba haysato la siiyey meel loo soo mariyaba in ay heshay madax maxaan ku dhahday nuclear ama russia ka soo qaato ama china ka soo qaadato saasay sheegayaan marka probabilityga waxaa dhici karta in netanyahu isagu uu yidhahdo aan ku bilowno madax nuclearna maaragtay dhulka aan ku dhigno tehraan ha taasaa maaragtay ixtimaalay leeyihiin in ay sidaas maraykanku u ogolaado uu sidaa ku dhaqaaqo saa ay sameeyaanna
maraykanku heshiis intee in la eg muxuu ka helayaa? dabcan trump doom ma aha, inkastuu maaragtay iska nin imtixaana uu yahay, laakiin bartankaas in la taabto ma u sahlanaanaysaa? waxay tilmaamayaan in ayna u sahlanaanaynin oo cidhiidhi badan uu galayo. senaarioga marka saddexaad waa maxay? senaarioga saddexaad waxay leeyihiin wuxuu noqon karaa in dagaalka lasii wado, oo dagaalku sida ukraine ruushku ay ilaa 4 sano hadda ay u socoto, in ay bil iyo 2 iyo 3ba ay ka badato, oo ilaa sanad ay dhici karto in uu gaadho. waa haddii hormuus la furo, waa haddii ay helaan awood dhaqaale, waa haddii ay helaan nato oo garab soo siiso oo soo dagaalka kusoo biirta. marka waxay noqonaysaa in iiraan la daaliyo, laga dhammeeyo hubka, ay isdhiibto markaa, oo sidaa ay iiraan lagaga adkaado. intee in la eg marka ayay dhici kartaa in ay maraykan iyo maaragtay israa'iil oo isla socda ay ku qancin karaan nato in ay ka helaan garab, ay ka helaan hindiya inay garab ka helaan, cid kale oo aaggaa ka dhowna inay garab ka helaan, sida oo kale in ay carabta soo geliyaan dagaalka, oo dagaalka carabta ay soo galaan. waxaa loo baahan yahay layidhi 200,000 oo askar, haddii la yidhahdo eventary ayaa lagu galayaa. arrintu ma sahlana, lucbadani waa lucbo aad u adag. marka xaaladda halkaasay maraysaa. waxaad ila fiirsanaysiin maaragtay sawirada aan idin tusay. insha allahu tacaala khayr allah idin siiyo. haddaad nala socon nagu soo biir. aad baad u mahadsan tahay, waqtigaaga qiimaha badan leh. is arag dambe oo xiise leh. clipka soo socda waxaan kaga hadli doonaa dadka odorosa sida uu u socdo dagaalkani, iyo waxa ay ka yidhaahdeen kuwa maraykana, kuwa aan maraykan ahayn, intaba. aad baad u mahadsantihiin. waa walaalkiin axmed jawhar. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.